بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داوديال idilkiin ba meel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aynu la yeelanayno xildhibaan Ilyas Barashil oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka mudane Ilyas markii hore kusoo dhawo telefishinka qaranka Soomaaliyeed waa macsantahay waana u mahadnaqay daawadayaasha okay mudane waxaan rabaa anigoo kaaga mahad celinayo waqtigaada ka qaaliga ah aad siisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed inaan wax ka weydiiyo dhowr arrimood markii hore waxaan jeclahay arrimaha qaxootiga dhawaana waxaa jira warar sheegay in dib loo celinayo dadka qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi arrimahaas maxaa ka jira ma aha dadka qaxootiga ku nool Nairobi ma aha waxaa jirtay waayahan oo dhan iyo ka horeba dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya iyo laanta qaabilsan qaxootiga in Kenya ay rabto inay dadka ku laabto dadka qaxootiga ku nool dhagaxley ifo xagar dheere iyo Kambicoos in dib loogu celiyo meelaha ay ka imaadeen ay maarta ciidanka Kenya xoreysay horta waa la yaab dadka marka loo qaxootiga ha noqdaan aad iyo aad baa looga calacalaa qaxootiga 22 sano ayay joogeen xarooyinka qaxootiga nolol aad iyo aad u culus oo u fool xun bay ku nool yihiin qaxootinimana wax lagu farxo mise lagu faano ma aha dadkan xabis weyn bay ku jiraan wiilkii ku dhashay qaxootiga maanta waa 22 jir gabadhii ku dhalatana waa 22 jir xaas bay leeyihiin ilmay dhalay ma soo bixi karaan qaxootiga intay ka soo baxaan ma imaan karaan hatta magaalada Gaarisa iska dhaaf Nairobi Soomaaliyana ma aadi karaan maantana wax waraaq ay wataan oo dhalasho Soomaaliya mise Kenya male xabis weyn bay ku jiraan hortay muhiimku waxa way dadkaas yaa u maqan markaan leenahay waa la celin waxaan doonaynaa wadankooda inay ku noqdaan horaan waxay uga soo barakaceen dhibaatooyin dhacday meeshii waa la xoreeyay dad ma joogo yaa u tagaya meeshaas midda kale waxaa la rabaa inay Soomaaliya dadka dib ugu laabto noloshooda ay bilaabato waad ogsoon tahay nin walba wadankiisa iyo sharaftiisu rabaa inuu dib ugu laabto marka muhiimka taas way hadda maadaama ay arrintan dhacday cusub baan ka dhignay waayo waxaan doonaynaa qaxootiga ajandahooda inay soo miiska la soo saaro saddex calaamo inay dhacdo mid inay wadankoodii intii si fiican loogu xoreeyo oo loogu geeyo cunto daawo iyo guryo iyo wax walba loo hagaajiyo adduunka uu dabana uu qaado arrintaas lama waa ha Kenya dadka ha qaado ta ka dhigto Kenyan oo ma artay meesha rabaan degaan markaas haddii taa la waayana adduunyanaha kala qaybsado oo afarta dacwalood adduunka la kala diro dambay ugu jirtaa muxuu ahaa dadka qaxootiga marka arrintan hadda jirta dadku ay aad isla dhaxmarayaan oo ah in dadka la celinayo ma saxba oo dadkii madalkooda ayaa lagu celinayaa mase arrintaas waa mid la iska dhaxmarayo dadku iska sheegayaan maya dadku Kenya waxay doonaysaa dadka in lagu celiyo wadankoodii markii wadanka la dhaho waa lagu celini waxa imaanaysa su'aala wadanka nabad ma aha xagee la geynaya adduunka soo qaylinaya adduunka marka waxaan weydiinaynaa hadi qaado ma gartay Kenya waxa la weydiinaya qaybtaada qaado marka waa in laga hadlaa hadii laga hadli waayo dadka silcaas ay ku noolaanayeen konton jir baa lagu gaari meeshii kii ku dhashay wax la hadlina malaha annaka dadka degaankana culays weyn baa na saaran maxaa yeelay maanta dad fiiriso dadka deegaanka faafi ku nool waa 100,000 300,000 oo qaxootina way dul saaranta marka dib baan hayaa intaas oo sanad joogay dadka waa dad walaalaheena waa dad Soomaaliya aad iyo aad u jecelnahay laakiin dantooda rabnaa inaan ka hadalno anagu waxaan doonaynaa
soomaaliya oo sharafteeda soo noqoto dadkan qaxootiga oo ka baxo maxaa yeelay qaxootinimo maxaa yeelay kan ku nool Yurub iyo kan America ku nool iyo kan ku nool ifo iyo dhagaxle iyo xagarle isku nooc ma kuwaas hooy ma haystaan cunto fiican ma haystaan ma gartay xabis korka ka feedan way meesh meel aadi karto ma jiro u fiirso adigoo ku dhalatay xaalada qaxooti oo 22 jir xaasle wiligeedan aan magaalada Gaarsi gaarin Soomaaliyana aadin waa u qaba dib weyn wey shaqaan aan lahayn dadkii maanta wuxuu noqday in ay ma aragtay dhalintii ay arrimaha aan fiicnayn ay ku dhaqaaqaan maanta dhagaxley ifo 2 xagarleere meesha qaxootiga ma geli kartid waa lagu xabadaynaya qarax baa ka dhaca ammaankii si kale u noqday marka waa inaan ka hadalna dad madax baan nahay yaa loo qaadan ma aragtay inaan dadkii rabno inaan Soomaalida meesha keenino waxaa kale jira sidaad ogsoon tahay shirkii u dambeeyay oo xildhibaanaha Soomaaliya lagu xulay madaxweynaha lagu doortay waxay ahayd misay dastuur la hagaajiyay in 4 sano 5 sano markay dhamaato one man one vote u dhaco oo ma artay xildhibaanaha ay madaxweyne ay xulin oo shacabka intii la dibaan geliyo ay doorasho ka dhacdo 600 oo kun baa ku nool muxuu ahaa xarooyin qaxootiga Dadaab waxay ka soo barakaceen jubbooyinka gedo ilaa ma muxuu ahaa Bayo Boqol dadka goorma codkooda ridayeen haddii meeshii loo banayn marka anigu waxay la tahay arrinta waa arrin aad iyo aad muhiim ah adduweynaha la rabaa inay iyakana isku imaadaan lacag ay bixiyaan crisis in la abuuro way si ay xal loo helo haddii laga aamuso waxay noqonaysaa business as usual waa tahay marka dadka la celinayo mudane ma dadka ku nool magaalooyinka mase waa dadka ku jira xeryaha qaxootiga ma dadka magaalooyinka dad ma aragtay waa dad culays aan dadku haynin oo iyaka ma aragtay ganacsanayo oo waxooda sabab kuwaas dhib nagu ma hayaan maxaa yeelay waa dad magaalooyinka ku jiro oo dadka dhibka nagu hayo waa dadka xuduudka ku dhow xarooyin qaxootiga hubba soo gala dhibaatooyin fara badan baa naga qabsadaa dhirtii waa la baabi'iyey biyihii way baaba'een nabadgelyada xun baa jirtaa dhanka kalena waa la xoreeyey intaasoo magaalo hadda al-shabaab aan haysanin baa jirta oo dadkaada ku noqon lahaa haddii dadka la dhaho waa la celina dawladda Soomaaliya shaqo hel leh iyadana ma gartay adduweynahana lacag u bixin lahaa maanta dad fara badan rabaa kaliyood iyagoo lagu qasbin diyaar way inay noqdaan oo rabaan meelahaas in la subiyo waad ogsoontahay hadda jubbooyinka iyo dawladdu way heshiyeen maamul baa la hagaajiyey maamulkii ay maamulayaan hadduu dad jir Bayo Boqol dawladda way ka muuqataa hadduu dadkooda lagu celin yay maamulayaan waa su-aalay Soomaaliya see laga rabaa ma qaxooti baa daa'ima lagu noolaan marka dadkii baa rabnaa inaan u danayno waan ku celinayaa haddii Soomaaliya ay qaadan wayso adduunka way qaadan waayo Kenyaati baan ka dhigay anaka u baahan qorshahan dadka lagu celinayo ma mid baarlamaanka Kenya ay soo jeediyeen oo dawladda ay soo bandhigeen ba mase waa mid dawladdu dhinaceeda ka yimid oo dawladda xaggeeda ka socda horaan dawladdu ka yimid haddana waan taageeraynaa aad baan ugu taageeraynaa su-aashaasna baarlamaankaan keenaynaa maxaa yeelay u fiirso laanta qaabilsan qaxootiga UNHCR haddaad tagto Dadaab noloshay ku nool yihiin waad yaabi guryo wada qurux badan ubax ku talaalan mukayf jiro biyaha cabitaanka diyaarada loogu keenaa cuntadooda fruitska ma artay diyaarada lagu keena maba doonayaan qaxootiga inay dadka meesha ka tagaan maxaa yeelay dhiigooda cabahayaan way raas dadka ka shaqeeyna dad Soomaali ma aha waa dad international community iyo Kenyaati annaka haddaan nahay deegaanka Soomaalida muxuu ahaa xaabadii dhirtii biyihii every baa laga dhigay waa walaalaheen waan diyaar baan u ahayn laakiin waa ku daalnay waxaan doonaynaa in xal loo helo xal baan doonaynaa waliba halkan aad u jecelnahay waxaa way Kenyaati ha laga dhigo waa walaalaheen ha noqdaan hadday dawladda Kenya diiday Soomaaliya ha lagu celiyo hadday Soomaaliya leeyahay nabad ma aha oo wali la rabo inay dhibaato ka dhacdo adduweynaha loo qaybiyo laakiin waa inay xal loo helaa qaab noocee bay kula tahay marka dadka Soomaalida ah ee xeryaha ku jira in dalkooda lagu celin karo process noocee baa loo mari karaa processka u hore waxaa way
meesha hadda al-shabaab laga xoreeyey oo nabadda ay taallo waa inay biyo loo geliyo hoy loo sameeyo dadki qaar la qaado ay tagaan kuwa jecel ay arkaan inay nolol fiican ku nool kuwa kale imaadaan hay-adaha samafalka inay xagga tagaan dawo ay geeyaan ngartay war waddanka anaka iskale waddanka haddii la soo cidleeyo adna aad qaxooti ku noolaato war waxa xal ma aha 22 sano dadka waqtigooda ka lumay waa dhalinyarada shaqo ma qabaan xarooyin qaxooti kama shaqayn karaa kii ka shaqeeyana 5,000 oo lacag Kenya qaadanaya mise 3,000 waa silac marka aniga waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa dawladda hadda ka dhisan Soomaaliya inay intay imaato dadkooda oo soo barakacay ay aragto dhibkay ku nool yihiin xildhibaanaha Soomaaliya in oo Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ha imaadaan anaga geynayna meeshaas aniga waa meeshii laga soo doortay ha arkaan dadkooda silac ay ku nool yihiin nabadgelyo darrada iyo waxaas adduuweynahana ha arko xal ha u sameeyo waliba dadka Soomaaliya aad waxay jecel yihiin in Mareykan noqdaan inay Yurub tagaan maanta hadaad weydiiso qaar Soomaalida hadaad dhado ma makaan ku geeya mise American ku geeya maanta waxay ka doorbidayaan in Mareykanka la geeyo marka waxa leenahay Mareykanka qaada dadkas marka ama Kenya dadka waa u baahnahay Soomaali waaye tiradooda hanoo badiyaan iyagana Kenyatta ka dhiga laakiin ma dhici karto in Soomaaliya la diido in lagu celiyo in Kenyatta laga dhigo la diido in adduunka u qaado ay silaca ku noolaan annaka ma ogolaaneen waayahay waa arrin fiican marar badan oo hore waxaa jirtay in dawladda Kenya ay shaacisay in dadka qaxootiga dib loo celinayo arrimahaasi way beenoobeen soo haddana ma laga yaabo sidaas oo kale inay dhacdo mid baan ku sheegay waxa way beenoobeen iyo waxa ma jirto horta number 1 dadka la rabo inay tashadaan waa Soomaalida talada koowaad oo su'aasha koowaad ay ku talinay waxa way Soomaaliya lagama maarma oo lagama samray mise waxa la rabaa inay wadankii sharaftiisa la soo celiyo oo lagu noqdo su'aal u taalo way Soomaalidu afarta dacalood adduunka meesha joogaan mar kastana waxaan dhahnaa nabadgelyo ma leh nabadgelyo darrada yaa keena yaana xasilnooli keeni Soomaalidu waa xarada ugu weyn qaxootiga noqda markaan dhahno waxa loo fasirayaa inaan nacab walaalihiin u hayno ma aha xal baan u raadinaynaa halkaasna waa in la helo halkaasna yaa keeni dawladda Soomaaliya shicibka Soomaaliya meel kasta oo joogo dawladda Kenya shicibka Kenya iyo adduunweynaha marka ajendahaas miiskan soo saarayna anaga waan aad iyo aad ban pressure u saarayna baarlamaanka Kenya geeyna UNCHR iyadana ay noqonin shilinta ma arta looda intay qarinto dhiiga ka muusato hadday doonayso inay Soomaaliya caawiso hay'adaha samafalka oo hadda dhadhaab joog gudaha Soomaaliya kuwa dhibaataysan Kismaayo ku dhibaataysan Kismaayo Soomaanta ma hasato ma arta dawladda Soomaaliya ma la geeyo cunto ma la geeyo daawo afmadow ma la geeyo meelaha kale ma la geeyo ma la geeyo beledweyne ma la geeyo muxuu ahaa Baydhabo ma gartay marka waxaan leenahay Soomaalidu waa la hilmaamay iyadana waa is hilmaamtay marka sheekadan waa sheeka soo barakaynayso soo xasuusinayso adduuweynaha dadkan qaxootiga ku nool oo 600 oo kun oo silaca ku nool waa in xal loo helaa dadka qaxootiga ah xeryaha dhadhaab ku nool sida sheegtay dhadhaab waxay ka tirsan tahay xeryaha ugu weyn caalamka dadkaasi qaxootiga ah qaarkood waxay weli ku andacoonayaan in wadankii Soomaaliya aanay ka jirin nabad badan oo la isku halayn karo Soomaa boonan marka in dadka meeshooda loo daayo ilaa amaan la isku halayn karo la helo xarada qaxootiga ee dhagaxley iyo ifo hadda ma nabad baa ka jirta dhaar boqorx baa ka dhaca ma gartay ma nabad baa ka jirta silac iyo nabad daraa jirta waxa ku dhaantaa wadankaadi hooyo adoo ku dhibaatooto maxaa yeelay maalintaan dhahno bal askartii Kenya ha gasho dadkii bay kufsani way dhici kuwii al-shabaab mise wixii la halmaalo iyakan sidaas oo kale yeelan meel u ron male marka arrintan waa su'aal anaga ma leeyin berri baa la rabaa laakiin waa in meel lagu dilo oo xal loo helo ayaa muhiim ah
mudan waxaan rabaa marka dhinaca kale inaan wax kaa weydiiyo dhowaan sida aan la soconno xarunta ganacsiga Westgate waxaa ka dhacay weerar wuxuushnimo ah weerarkaasi baarlamaanka dalka Kenya maxay ka yiraahdeen weerarka sida ogsoon tahay argixisadu waa arrin caalami ah waddanka maartay la dhaho maartay uu xoog badan yahay adduunka waa Mareykanka iyo galbeedka ama saa fal baa ka dhacay oo argaxiso iyagoo maartay amnigooda aad u sugay ku faanaya qawi muxuu ahaa ciidan inay leeyihiin ayaa ka dhacay Kenya intaasoo jeer bay fashalisay falal kasii foolxunsan tanna way dhacday hadday dhacday una baraarujisay in dib baan isku laamaynaa oo hadda guddigaygan iyo guddiga laba guddiga isku jiro waxaan baaraynaa arrintaas ay ku dhacday jira kuwa nabad sugida jira kuwa difaaca hadda joogo Kismaayo iyo muxuu ahaa jubbooyinka jiraan waxaa jiraan kuwa laamaha socdaalka oo marmar maartay corruption maartay jiro lacag yar iska qaataan dadka passport Kenyaati siinayaan ama wax kale arrimo fara badan baa jira markaas arrimihii baan baaraynaa oo maartay waxaan ka soo saaraynaa qoraal waxaa jira warar sheegaya in dawladda Kenya laftarkeedu ay lug ku lahayd weerarka maxaad ka dhiglayd arrintaas taas waa iska wax jiro ma jiro waxaas dawladda iyo isburburin inta lagu arkay ma jiro waxaas waa arkaysaa masawirkii CCTV kuwa hubeysan in la arkay waxa waa ku teen waxaas ma jiri karo nin dawlad iyo isqarxin imeed sidoo kale warar kale waxaa jira dadkii weerarka geystay in si nabdoon ay goobta uga baxsadeen oo ilaa iyo hadda dawladda Kenya waxay sheegtay in dadka qaarkood ay dishay qaarkoodna la hayo waxaa la leeyahay dadka maxaa loo soo bandhigi lahaa arrimahaas hortay laamaha qaabilsan nabad sugida ayaa wax ka oranaya aniga waxaan ahay nin xildhibaan shaqadeena waxaa way inaan baarno xukuumadda inay shaqadeeda qabsatay iyo kan marka taas kama faaleen karo waana arrin maartay ku saabsan nabadda marka taa kama faaleen karo dadka hadda CCTV-ga loo arkay 40 nin hal nin baa soo mid waa Suudani mid waa Arab marka waa dad argagixisay Soomaalidana iyada naftigeeda ayaa argagixisay ku dhacday xamar amsa qarax baa ka dhaca amsa dhibaatooyin baa loo geystaa Soomaalidu marka arrin Soomaali ma aha Soomaalida jecel inay rabto inay dhankeeda loo soo laabo wax dawlad markay dhibad ka dhaco amniga suweysa waxaa jira dad fara badan iska joogo sharci darro ku joogo dawlad ogolaan inay sharci darro wadanka iskaga joogto ma laha maxaa yeelay waa inaad diiwaan gashan tahay berrito dhib dhaco farahaada iyo wax la helaya moogtay markay taad aragtaa ogow waa dad wadankooda ilaalsanaya maarta yaa loo arkin wax Soomaaliya maxaa yeelay wadankan Kenya saan ku garanayo 22 sano ayay Soomaaliya burbursaneed waa dadka Soomaalida soo dhaweeyay mana arkaysid meel hal qof intuu imaado maantana uu guri ka gadan maantana uu sharci ku yeelanayo yaana ma artay dawladda Kenya yaa la dhihin Soomaalida ay dib ku hasa aniga waxaan arkayaa inay mar kastaba ay xuquuqda Soomaalida ilaaliso ayna wanaajiso waxaan rabaa wadamaha jiraan kale ee Soomaaliya raadi wadan sidii Kenya hood ma artay u noqday meel Soomaalida ay ku hoyato ma jirto mudan marka shakhsiyan adiga weerarkii Westgate ujeedada ka dambaysa maxay kula tahay in meeshaas la bartilmaameedsado maxaad ku macnaa waxa way maadaama Kenya la dagaalayso argagixiso galbeedkana iskaashadeen iyadana ay la dagaalayaan waxay rabaan inay maartay ay xanuun u geystaan dawladda Kenya iyo galbeedku marka way fiiriyeen waxay arkeen meesha dadka cadaanka kaliya ay maartay imaadaan inay meesha tahay meesha dadka lacagta leh marka meeshaas la beegsteen meeshana nin Israa'iil baa iska leh iyakana maartay sidaas ay maartay ku soo galeen oo ay rabaan inay magac ku yeeshaan lacag inay ku helaan maartay anaga waxaan dadka lacagta siiyo marka arrintaasna ma shaqeynayso argixisada waa la dagaali waana laga reynaya waayo xaq iyo baadilka ma wada socdo
argagixiso intay u geysatay ummadda Soomaaliyeed oo Soomaaliya ku joogto ma jirto waad ogeed ardaydii muxuu ahaa Turkiga ay rabtay inay dibadda geyso oo masaakiinta iska ah oo gobolaha Soomaaliya laga keenay iyo koofman buuxsanaya qaraxi dhacay 70kii arday la laayay dadka ayaa ahayn dadka yahuud ma ahayn gaala ma ahayn muwaadin Soomaaliya ay ahaayeen ninka suubiyana muwaadin Soomaali buu ahaa meeshu ku suubiyana waa magaalo maxdi Soomaaliya marka Soomaalidu iyadaaba dhib weyn ma artay loo geystay marka horta arinta yaa loo arkin dhankaas ugu dambeyn marka dawladda Kenya mudana ma wada wax qorshayaal ah oo ay kaga hortagayso weerar lamid ah kii Westgate ama wax qalqal gelinaya amaanka guud ee dalka Kenya waxa muhiim ah inay shacabka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya iyo shacabka Kenya iyo dawladda Kenya inay wada shaqeeyaan waayo dadkaas askarta 4,000 oo joogto halkaas iyo kuwa kale Uganda waxay u tageen meeshaas ay dhigooda u horeen Soomaali sababteed waad ogsoon tahay magaalada Muqdisho maanta hadday ahayn AMISOM dawladda in la fuuqsan lahaa hogaamiye kooxeed inay imaan lahaayeen intaas dad kale lagu jooga laakiin aad iyo aad waxaan u jeclaan lahaa muwaadin Soomaaliya oo ciidan Soomaali oo lacag fiican intii la siiyo hub fiican intii la siiyo wadankooda xoreeyo ayaan aad iyo aad uga jeclaan lahaa kana qurux badan ma garatay taasna waxa lagu gaari Soomaalida inay tashato inay qabyaaladnimo inta ka baxdo muwaadinnimo Soomaali ay ma artay dadka lagu beero oo la dagaalo cadawga Soomaalida cadawga Soomaalida koowaad waa dadka Soomaaliyeed oo rabin inay Soomaaliya lagu mamaalo cadaalad oo ku dhuumanaya diin عشان بيد واحد سنتين الشباب أحضر إنه يتجاهل معيان محيو كلا بحين كوا ودنية يكوا لي جهادست global جهادست إنه كلا بحين أو كوي ودنية ها أو هران بنت الله شيء إن لا أقار صدي قارك هذا لدي ليك العرب حسن الظاهرة ويسا كميدة ربوبا كميدة معايلة تبكي أي أوجستين muwaadinka Soomaaliya ayaa xaqi ba ku soo laaftay maanta waa inay ka fikiraan inay dawladda Soomaaliya la shaqeeyaan dawladdaas waa dawlad la soo doortay xaqaani ah oo wajiga Soomaalida leh waa inay muwaadinimadii aad iyo aad looga fikiro oo dadkan qashinka oo ma aragtay afarta dacalood adduunka iskaga imaaday oo ku dhuumanaya Soomaaliya oo dhibaatooyin fara badan u geysanaya muwaadinkii Soomaaliya dawladeeda iyo dadka jiiraanka inay laga bixiyo marka waa in dib mar kastaba loo fikiro maxaa yeelay waqtiga waa nagu dheeraaday ay xasilnoolidii la'aantii Soomaaliya aad buu u dheeraaday ma sugi karno 20 sano kale marka waa in laga fikiraa aad baad u mahadsan tahay xildhibaan إلياس برشيل oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Kenya oo wareysiinay telefishinka qaranka Soomaaliyeed studio Nairobi aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato shacabkii Soomaaliya ha noolaado ilaahayna nabad iyo dhulkooda bashbash iyo barwaaqo Allah ku celiyo thank you